Dowladda Seychelles ayaa ku eedeysay Somaliland sii deynta 19 maxbuus oo horey loogu xukumay eedeymo la xiriira burcadbadeednimo isla markaasina deegaanada Somaliland loogu talagalay inay ku dhameystaan xukunada lagu riday. Seychelles ayaa sheegtay in Somaliland ay ka baxday heshiis ay hore ula gaadhay kaas oo ku aadanaa in maxaabiista Soomaalida ah ee lagu xukumay eedeymaha burcadbadeednimada in lagu hayo xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Seychelles ayaa lagu sheegay in la yaab ay ku noqotay tallaabada ay Somaliland xorriyadooda ugu fasaxday maxaabiistan burcadbadeednimada ku xukunaa. wasaaradda ayaa sheegtay in maxaabiistani ay ku xukunaayeen xabsi u dhaxeeya 30 ilaa 42 sanadood isla markaasina hadda ay xidhan yihiin kaliya 9 sanadood. maxaabiistan ayaa waxay gaadheen magaalada Muqdisho kadib markii oday dhaqameedyo ka soo jeeda maamulka Galmudug ay gaadheen magaalada Hargeysa. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa horey maxaabiistani cafis madaxweyne ugu fidiyay kadibna sidaasi lagaga sii daayay xabsiga. waxaana maalintii shalay ahayd lagu sabootiyay garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana lagu qaaday diyaarad khaas ah. arrintani ayaa Seychelles waxay ku tilmaamtay ay sii adkeynayso la dagaalanka lagula jiro burcadbadeedka.